gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baraba ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay shirkaasi oo uga hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga magaalada Baraba iyadoo ay nagu soo fool leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baraba ayaa ugu horreyn laamaha amniga faray in ay iska kaashadaan sidii amniga loo sii adkeyn lahaa. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baraba ayaa soo hadal qaaday in gawaarida haweenadii xilliga maqribka la gaaro inaysan magaalada socon karin isla markaasina midaasna awaamiir laga soo saaray. maanta oo ah 1 Abriil 2022 waxaa inoo soo gabagaboobay shirkii amniga ee maalmihii dambe inoo socday waxaana inooga soo baxay qodobo dhowr ah oo muhiimadeeduna ay tahay inaan si laba jibaarno amniga. sidaad ka warqabtiin degmada Baraba waa degmo nabada amnigeedana waxa waa habeen iyo maalin ilaamaha amniga ka shaqeeyaan hadeertaana maadaama ay nagu soo food leedahay oo aan galayna bishii barakeysnaad ee Ramadaan inaan sii xoojino shaqooyinkii amniga. waxaan soo saarnay awaamiir ku saabsan sidii amniga loo sugi lahaa oo ah qodobka koowaad degmada Baraba baabuurta aad ay ugu soo farbadatay in habeenkii wixii ka dambeeya hal saac ay baabuurta xadidmi doonaan aan la ogolaa doonin baabuurta dadka lagu dhibaateeyo dadka cibaadooyinka dadka cibaadeysanaayo cibaadada iyo waxa way ay iska mashquulin dadka tuugada aysan isticmaalin dadka nabadiidka aysan isticmaalin bulshada dhammaan iyo cibaadooyinkooda iyo meelaha ay ku caweeyaanna waxa waa si nabada ay u gutaan danahay leeyihiin. laamaha amniga habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin inay xaqiijiyaan amniga bulshadana waxa ay ugu baahan yihiin inay ula shaqeeyaan si dhow wixii amniga lid ku ah inaa u soo gudbisaan laamaha amniga qaybahooda kala duwan. diyaar waxaa u nahay inaan si loo jibaarno shaqooyinka amniga. bulshada waxaa laga rabaa ayadana waxa waa sida aan sheegay inay si dhow ula shaqeeyaan sababtoo ah markii maamulka iyo bulshada ay wada shaqeeyaan ayaa waxa waa amni iyo nabad la helaa. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baraba ayaa waxa uu ka hadlay dhulboobka lagu hayo degmada Baraba kaasoo ah in maalmihii ugu dambeeyay ay soo badanayeen dhulalka sida sharci darrada ah loo iibinayo ama sida sharci darrada ah ee loo dhisanayo. ka soo baxay shirarka waxaa ka mid ahaa arrimaha dhulka oo muddooyinkan dambe dacwadiisa aad ay ugu soo badatay degmada in la isku qabsan dhulalka aanan waxa way la iska cabiran dhulalka badan oo ilaa iyo biimaalo ilaa iyo ceel dacfaraad ilaa iyo dhan walba oo magaalada ka baxsan waxaan ugu baaqaa qof walba qofkii dhul leh waxa waaye inuu waxa waaye maamulka iyo qaybaha dhulka uu soo xiriiro oo meel intuu iska aado dhul oo iska calaamaysan mid kale intuu imaado oo soo kula dagaalin waxaan ugu baaqaynaa qof walba dhul leh waxa waaye si sharciga waafaqsan inuu soo xaqiisa in aan la isku din oo aan la isku dhibaateen wuxuusan maamulka iyo xafiisyada maamulka dhulka ku shaqada leh aan ogeyn waxa waa cid aysan qabad karin aysan u aadi karin. ugu dambeyn gudoomiyaha dhinaca amniga ee degmada Baraba Ismaaciil Cabdullaahi Jaadane ayaa qaybaha kala duwan ee ciidamada ku amray inaysan rasaas gemi karin isla markaasina sheegay cid allaale cid kasta oo ka tirsan ciidamada laga qaadi doono cid rasaasta gemtay tallaabo sharciga waafaqsan. saddexaad waxa waaye laamaha amniga ay kan waxaan faraa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan kuwa nabadda sugaya waxa aad sugeysaan aad heesaan waa nabadda degmada iyo dadka aad u heesaan ma ahan in dadka qalqal geliyo ciidamada qalabka sida waxaan ugu baaqaa inaysan jiri doonin maanta wixii ka dambeeyo askari dambe oo si bilaa sabab ah xabado iskaga rido bulshada qalqal geliyo degmada Baraba waxay tahay degmo nabada laguma kasaayo waxa waa in askarta xabado iskaga ridaan askari iyo xabad ridana waxa u yeelay ganaax iyo xabsi hadeertaana waa soo celinay ma ogolaan doono inay askarta bilaa sabab ay u ridaan xabadaha qaybtooda doona ka tirsanaado ciidan koraba ha ahaado ma ogolin xabad bilaa sabab ee bulshada in lagu qalqal geliyo amnigana waxa waaye wax loo yeelo waxaan faraa laamaha amniga qaybahooda kala duwan ciidamada qalabka sida dhammaan maanta wixii ka dambeeya askariga bilaa sabab magaalada waxa waaye dhexdeeda xabad in asigana tilaabo sharci ah laga qaadi doono. amniga degmada waxa waaye wixii maamulka iyo wixii amniga iyo bulshada dhammaan amniga waxa waa anaka u wada baahan waa inaan ka wada shaqeynaa aad ka kaashanaa bulshadana waxa waa wixii amniga lid ku ah inay waxa waa laamaha amniga u soo gudbiyaan degmada nabadeeda anaka wada anfacaysaa waa inaan ka wada shaqeynaa.
kastaba ha ahaatee shirkan ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli saacadooyin kooban ay naga hadsan tahay curashada bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana laamaha amniga ay fareen in la adkeeyo amniga. Axmed Qadar, Radio Marka, magaalada